بسم الله الرحمن الرحيم وتصالحيني saddexaad casharadii HTML-ka ahaa tusaalaha saddexaad waxaynu ku qaadan doonaa example ciwaankiisu uu yahay write HTML code qor HTML code qor baa la yidhi with an image kaasoo sawir wata marka hadda tusaalahan web page baynu ku abuuranaa kabacdina waxaynu soo gelinaynaa sawir baynu soo gelinaynaa qoraalka sawirka aynu kusoo gelinayno waa kan xaggan inoogu qoran yahay isaga oo wax la yidhaahdo isagoo practical ana waynu qori doonaa insha allah marka waxaan sameynaynaa marka hore waxaynu teganaa editorkeena sublime textkeena aynu soo kicinanaa aan qoranaa sublime markuu saa inoogu soo kaco file baynu teganaa save baynu odhanaa hadduu wax ku qoran yihiin halkana file baa tegaysaa new file baa leedahay aniga waxa iguma qora file baan tegayaa save baan leeyahay marka desktop-kan dhiganayaa kabacdi waxaan bixinayaa lesson4.html lesson4.html ama lesson3 aan ka dhigo kaadba ka dhigo .html waayahay kabacdi waxaa leeyahay save yes baan odhanayaa waayahay filekaygu waan abuuray maxaan sameynayaa marka koowaad waxaan qorayaa asaasiyaadkii web page-ka maadaama lagu yidhi html code qor kabacdina waxaad samaysaa sawir soo geli marka koowaad web page-kaygi baan abuuranayaa title-ka waxaan ka dhigayaa lesson3 ama waxaan ka dhigayaa html with an image ciwaanka web page-kayga saasaan ka dhigayaa body tag-aan tegayaa marka wax kasta oo content-iya oo aad soo gelinaysid waxaad ka soo gelinaysaa body tag-ga midhaas waa inaad la socotaa maadaama structure-ka iyo website-ka guud ahaan 90% website-ka macluumaadka la soo gelinaya ama website-ka guud ahaan structure-kiisa oo dhan body tag gudihiisa laga soo geliyo waaya waxaan raaci doonaa markasta tusaalaha buga ku qoran baan ku raaci doonaa tusaalaha buga ku qoran markooda waxaa la isticmaalay tag la dhaho center tagga center la dhaho shaqada uu qabanaya waxa weeye centralize contentiga iyo macluumaadka aad soo gelisid haddaad sawir soo gelisid haddaad table soo gelisid haddaad qoraal soo gelisid ayuu web page-ka bartankiisa kuu dhigayaa web page-ka hadda result markii la soo baxo ee browser-ka waxa la yiraahdo aynu kusoo kicino file-keena ama web page-keena inuu macluumaadkii page-ka centerkiisa inoo dhigo intaasuu qabanaya waayo intaa markaan sameeyo sawirkayga ciwaan baan u sameynayaa ciwaanka waxaan adeegsanayaa h1 ciwaanada sida loo qoro waa inoo imaan doonaa waa cashir ku xiga h1 baan adeegsanayaa kabacdi waxaan leeyahay kani waa sawir baan leeyahay waxaan gelinayaa halkan waxaan qorayaa br kabacdi waxaan leeyahay kusoo dhawow waayahay intaan maxay tahay marka intaan h1tan waxay tilmaamaysaa waxaan inuu ciwaan yahay weliba ciwaan waaweyn yahay br-tanna waxay qabanaysaa shaqadeedu ay tahay in ay line-kan halka line ah had irto hadhowta markuu web page-keena kasoo baxo ama browser-keena kasoo baxo inuu laba line noqdo oo ishoos yaalla inuu noqdo shaqadeedu waa intaas marka inuu laba line ka dhigo waa single line break waayahay hoos baan u deganaa marka sawirka haddaan soo gelinaynaa waxaan isticmaalnaa tag la dhaho img tag kaasoo ay caawinayso ama waxa la yirahdo ay la shaqeynayso attribute la yirahdo src attribute waxaa loo soo gaabiyay source wuxuuna inoo hayaa the path of the image hore baynu usoo baranay wadada loo maraya sawirka oo hadda markaynu sawirka soo gelinayno waxaa qaabilsan sawir soo gelinta website-ka tagga la dhaho img laakiin tagga img la dhaho miyuu garanayaa sawirka uu soo gelinayo maya garan maayo yaa tusaya oo geenaya sawirka waxaa geenaya tagga la dhaho attribute-ka la dhaho src marka halkan waxaynu gelin doonaa tagga folderka uu yaallo iyo magaciisa iyo extensionkiisa intaasaynu gelinaynaa intaasa waxay noqonaysaa identification-ka ama path-ka loo marayo wadada loo marayo sawirka src baynu u dhiibanaa src-na waxay u geynaysaa tagga la dhaho img tagga img la dhahana sawirkii ila wadadii loo marayay uu haystaa wuu soo qaadaya oo web page-kaaga ayuu keenaya marka tagga img la dhaho ayaynu adeegsan doonaa kaasoo ay caawinayso attribute-ka la dhaho src ama source attribute qeexitaankiisa waa soo qaadanay waa attribute-ka inoo haya the path of the image wadada loo maraya sawirka waayahay wadada sawirka loo maraya maxay tahay waxaad qoraysaa marka sawirku folderka uu yaallo sawirka magaciisa iyo extensionkiisa intaas ayaad sheegaysaa tusaale waxaan leeyahay sawirka aan soo gelinaya wuxuu yaalaa desktop-ka forward slash baan leeyahay magaciisana waxaa la dhahaa logo
dot extensionkiisana waxaa la dhahaa dot png intaasaan qoraya. intaana waxay tahay marka the path of the image, wadada sawirka loo marayo waa intaan. wadada sawirka loo marayo maadaama ay intan tahay wadada cidda inoo haysa ee mas-uulka inooga ah waa attribute la dhaho src, wuxuu inoo dhiibayaa tag la dhaho img. intaa marka aan sameeyo waan save garaynayaa, webpage-kaygaan soo kicinayaa ama koodhkaygaan ran garaynayaa. maxaa laynoo soo gelinaya webpage-keeni la odhanaya lesson 3 sawirkaas magacaas leh ayaa la soo gelinaya. waayahay waad iskaga tegi kartaa folderka, sometimes folderka waa iskaga tegi kartaa oo waxaad qori kartaa logo kaliya, logo.png sida book uu qoray oo kale. logo.png intan png logo waa sawirka magaciisa, marka adiga magac kala laga yaabaa inuu kuugu qoran yahay, magaca uu kuugu qoran yahay waa inaad garanaysaa. sidoo kale folderka uu yaallo sawirka waa inaad garanaysaa, extensionka sawirkana waa inaad garanaysaa. intaasba waa inaad ogtahay inta aadan sawirka soo gelintiisa iyo hawlahaas ku mashquulinba. kan waa identificationka iyo aqoonsiga sawirka, kana waa magaciisii. inta ka horreysay desktopna waa folderka uu yaallo. anigu hadda sawirka aan rabay inaan soo geliyo waa kan weeye, meesha uu yaallaa waa desktopka. extensionkiisa magaciisu waa kan, waa logo. extensionkiisa haddaan rabo inaan eegana waxaan sameynayaa right click baan leeyahay. right click markaan leeyahay xaggan hoose show more baan odhanayaa, kabacdi waxaan dooranayaa property baan dooranaya. property markaan doorto halkan waxaad ku aragtaa in sawirkan uu yahay extensionkiisu jpeg. png baan anigu hadda ku qoray meesha, laakiin waa khalad, waa jpeg extensionka sawirka. haddaan aanan soo eegi lahayn oo aan png ku qori lahaa waan saa ku rangarayn lahaa koodhkayga iima shaqeeya, sawirkana laima soo geliyeen waayo lama kara identificationkii sawirka ayaan khalday. waayahay jpeg wey, sawirka magaciisuna waa logo. waayo waan ka noqonayaa xaggan aan tegayaa, marka koodhkayga waan ku noqonayaa. desktop waxba qori maayo, sababtaan u qorayna waa kuu sheegaya. halkan waxaan ka dhigayaa logo. maxaan u tirtiraa marka desktopka? waxaan u tirtiraa haddii faylkaagan aad ku samaynayso webpage-ka iyo sawirka aad soo gelinaysa ay isku folder yaallaan, uma baahnid inaad folderka magaciisa sheegtid. tusaale hadda aniga faylkaygan lesson 3 waa kan, halkan uu yaalaa lesson 3 waa kan, isku folder bay yaallaan. marka lesson 3 iyo sawirka aan soo gelinayo waa kuwan, isku folder bay yaallaan. marka uma baahni in aan u sheego editorka ama tagga img la dhaho ee folderka sawirku yaallo, sababtoo ah marka koowaadba faylku folderka uu yaallo ayuu ka baadhayaa, marka hadda u sheegi maayo. laakiin ka waran haddii loogadaydu ay ooli lahayd folderka la yiraahdo pictures tusaalahaan oo kale folderkan oo kale ay ooli lahayd, waa inaan folderka marka hore magaciisa sheegaa, kabacdina sawirka magaciisa sheegaa, kabacdina identificationkiisa ama extensionkiisa aan sheegaa. hadda laakiin uma baahni. waayahay intaa marka aan sameeyo waan save garaynayaa, markasta safeta loo ogow markasta oo qoraalka dhamaystay, kadibna waan soo kicinayaa. waxaan rajaynayaa tagskaas aan qoray tag walba macnihiisa iyo waxa uu qabanaya inaad fahantay. right click baan leeyahay, kabacdi waxaan leeyahay open in browser. waa kan marka sawirkii baa la soo geliyay. sawirkaygii waa kan, centerka page-ka la dhigay. ciwaankaygiina waa kan, centerka page-ka la dhigay. yaa keenay in page-ka centerkiisa la dhaho? waxaa keenay tagga la dhaho center. waaye halkan ciwaan baa laygu qoray. ciwaankan in farmad madow oo waaweyn lagu qoro maxaa keenay? waxaa keenay tagga la dhaho h1. waaye ciwaanka markaan halkan ku qoray hal line oo dheer buu ahaa, maxaa laba line ka dhigay oo saan oo kale laba line uga dhigay? waxa uga dhigay tagga la dhaho br. waaye sawir baa halkan la soo geliyey, yaa soo geliyey? waxaa soo geliyey tagga la dhaho img tag. intaasina waa intaas. waa tusaalaheeni saddexaad. aad iyo aad baad mahadsantihiin. halkaas ku jirsanina. assalaamu calaykum.